mar kale waxaa cirka isku shareeray tuhunka laga qabo inaan Mareykanku daacad ka ahayn dadaalada diblomaasiga ah ee la doonayo in lagu xalliyo xiisadda bariga dhexe. Waxaa saacadihii dhawaa si dhab loo xaqiijiyay in Washington isu diyaarinayso weerar ka dhan ah Iran, oo sida warbaahinta Mareykanku qayb ahaan warisay la filan karo inuu bilowdo Sabtidan dhow. Macluumaadyadan cusub waxa ay daaha ka rogeen in Donald Trump markan ugu dhow yahay inuu bilaabo dagaalka Iran, marka loo eego asbuucyadii hanjabaadda iyo hubruursiga ahaa ee ina dhaafay. Warbaahinta Mareykanka qaybteeda sida gaarka ah u dirista xiisadda bariga dhexe ayaa xalay daboolka ka qaaday in Donald Trump ay miiska u saaran yihiin qorshayaal dhowr ah oo jaangoynaya nooca weerar ee Washington doonayso inay Iran ku qaado. Kala doorashooyinkaas oo uu Trump kala tashanayo saraakiil sare oo ka tirsan hay'adaha ammaanka Mareykanka iyo xubno kale oo loogu yeeray inay khibrad sare u leeyihiin khariirada Iran iyo meelaha ay ka dagnaan karto Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Inkastoo warbaahinta arrintan daaha ka rogtay oo ay ugu horeeyaan Axios iyo CBS ay xaqiijiyeen in Trump uusan si rasmi ah u qaadan go'aanka weerarka, haddana waxaa lagu warramayaa in diyaaradaha casriga ah ee dagaalka dalkaas oo tiradoodu 50 ka badan tahay iyo ciidamo hor leh saacadihii dhawaa lagu xoojiyay hubka iyo ciidanka Mareykanka ee gobolkaas ku sugan, halka markabka dagaalka ee USS Gerald R. Ford isagana la wariyay inuu ku dhow yahay ku biirista koox maraakibeedda dagaalka ee haatanba Mareykanka ka jooga xadbiyoodyada Iran. Kadib dhaqdhaqaaqyadan cusub ee muujiyay inaan xiisadda bariga dhexe dagaal horeynin, waxa ayna halkooda ka sii socda hanjabaadaha Mareykanku Tehran u dirayo ee quseeya in Iran dani ugu jirto inay si dhaqso leh u saxiixdo nooca heshiis ee Mareykanku ka doonayo. Trump ayaa war qoraal ah oo saacadihii dhawaa ku baahiyay bartiisa Truth Social ku yiri: haddii aysan Iran go'aansan inay heshiis nala gaarto, waxaanu u baahan doonaa inaanu adeegsano saldhiggeena cirka ee ku yaal jasiiradaha Jagus ee badweynta India si aanu isugu diyaarino ka hortagga iyo burburinta duulaanada suurtagalka ah ee ka iman kara taliska Iran ee aan cagaha badan ku taagnayn. Inkastoo ay tani qayb ka tahay hanjabaadaha maalinlaha ah ee Trump joogtada ugu diro Tehran, haddana waxa ay daboolka ka qaaday in adeegsiga fariisimaha Mareykanku ku leeyahay jasiiradaha Jagus ku yaal xadbadeedka Maldives ee Ingiriisku iska leeyahay ay qayb ka tahay qorshayaasha tashigooda Trump ku mashquulsan yahay. Macluumaadyadan cusub dhiilada leh ee tusaya in kaabiga loo joogo in xalka bariga dhexe xabaduun ku dambeeyo ayaa yimid kadib iyadoo maalin ka hor Iran rajo weyn ka muujisay natiijadii koobnayd ee ka soo baxday wareegga labaad ee wadahadallada labadan dal ee ka dhacay dalka Switzerland. Mareykanku bilowgii waxa uu isna docdiisa sheegay in wadahadallada horumar laga sameeyay, ha yeeshee saacado ka hor afhayeenka aqalka cad waxa ay sheegtay inay weli labada dal qadiyado badan ku kala fog yihiin, iyadoo xustay in danta Iran ku jirto inay Trump la heshiiso. Iran docdeeda waxa ay ku hawlan tahay dhoolatusyada military ee ay ka sameynayso marinbiyoodka Hormuz iyo gacanka Cumaan oo xitaa ay qayb ka yihiin gaadiidka iyo ciidamada badda Ruushka sida lagu warramay. Isxulufaysigan dhoolatuska la fahantiisa iyo xiritaankii gacanka Hormuz ee Iran ayaa loo badinayaa inay sababtay cadaadisyada cusub ee ka imanaya docda Mareykanka. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa docdiisa ku hanjabay inaan culays kasta oo Iran la saaraa waxba ka bedelayn waaqica isdifaaca ku dhisan ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Waxaana qoraal uu maalin ka hor soo saaray uu si adag Mareykanka ugaga digay halista hubka Iran oo uu sheegay inay haystaan quwad hubeed oo burburin karta maraakiibta dagaalka ee Mareykanku u diray xadadka dalkaas. Hanjabaadaha ducaha, hubruursiga xadbeelka ah iyo xalka diblomaasiyadda oo laga sii durkaya waxa ay soo dhaweynaysaa walaaca laga qabo in xiisadda bariga dhexe colaad u jihaysato, taas oo aan cawaaqibkeeda cabir laga haysan.